shakhsiyaddii maxamed siyaad barre marka si kooban loo qeexo waxa uu lahaa laba sifo iska soo horjeeda. waxa uu lahaa maxamed siyaad barre samaan iyo xumaan isku dhafan. waxa uu ahaa xariif midabo badan leh oo aan lahayn meel loogu soo hagaago. marka laga eego dhanka wanaagsan waxa uu ahaa madaale karti badan oo aan laga dareemin toddobaad caajis haddii uu shaqeeyo. waxa uu ahaa maxamed siyaad barre aftahan oo eebbe ku manaystay tacaddaaf ah uu lahaa inuu aragtidiisa u fasilo bulshada daawanaysa ama uu xukumayo. maadaamuu maxamed siyaad barre ka mid ahaa gaadariintii gumaystaha tababaray jeedhay dhankaas iyo dalka talyaaniga, maxamed siyaad barre marka uu bulshada la hadlayo waxa uu ahaa mid aftahana hele. tusaale fudud haddaan idinku soo qaato daawadayaal, xilli uu madaxweyne maxamed siyaad barre dadka ka wacyigelinayay dhibaatada uu leeyahay qaadku, waxa uu ku tilmaamay maxamed siyaad barre qaadka inuu yahay dilaa, isla markaasina waxa uu ku sheegay magacyo badan. xilligaasi oo 1982 maxamed siyaad barre uu meel khayriyada kala hadlayay dadka Soomaaliyeed. maxamed siyaad barre daawadayaal sidii hore u soo sheegnay waxa uu janjeeray dhankaas iyo dalka Talyaaniga. haddana maxamed siyaad barre muusan ahayn kabaqaad shisheeyaha u sujuuda oo Soomaalinimada ayuu aad u jeclaa. ma ahayn siyaasiyiinta maanta jira ee hadda lagu tilmaami karo diyuusta dadkooda iyo dalkoodaba u gacan geliyey shisheeyaha. bulshay waxa uu ahaa maxamed siyaad barre dabeecad wanaagsan oo aan isla weynayn, kuna dadaala inuu qof waliba dhegaysto isla markaasina uu qanciyo shakhsiyaadka. waxaana weeyaan ha ka beeraynina ku taagnaada sabaan fog baa la tiriyey. ma duqoolee weliga waa joogaa. soomaaliyay toosa isku tiirsada hadda kiina taag daran taageera weligii. waxaan marka u leexanayaa in jaadka qabiilku waa firdhiye, jaadku waa baktiye, waa xudriye, waa dilaha khalaaqadda, waa dilaha tacsashada, waa dilaha qabka binu aadamka iyo isxilhaynta, waa dilaha, waa wax mabartaha, waa matalcadaha, waa isticmaalu shaqeeyaha, waa sulliqaha. ma waxaas baynu adkaysan karaynaa? maya, uma adkaysan karno, ma yeeli karno. haddaba maxamed siyaad barre marka dhanka xumaanta laga eego, maxamed siyaad barre waxa uu ahaa mid aad ugu liita xagga diinta, kuna soo koray agoonnimo iyo ciilqab. wixii gaf loo geystayna aan weligii hilmaamin. habdhaqankaasi waxaa lagu tilmaami karaa weligaa ha iloobin hana cafin, waana meesha ay Soomaalidu maanta ka tidhaahdo rajay rijaal ma noqdo. maxamed siyaad barre waxa uu ahaa malab iyo dacar meel ku wada jira. maxamed siyaad barre 1969 waxa uu Soomaaliya ka xoreeyay gafanayaal ummadda shaqa iyo gumaysi siloon. balse waxay ayaan darra dhacday maxamed siyaad barre markii uu dalka ka tegay isagoo dalku ku jira marxalad aan nabadgelyo ahayn. qabri madow ayaa lagu xabaalay, qaarna xiro qaxoonti ayay ku dayacmeen. sidaasi darteed maxamed siyaad barre waxa uu ahaa xoreeye gumeeye. mar wuxuu ahaa maxamed siyaad barre halyey aragti fog leh. 7 sane uu dalka ugu horreysay waxa uu soo dhisay ay ka wada muuqdaan Soomaalida inteeda kale. heer sanadadii ugu dambaysay ay dalka ku tartamaan bah qadiijo iyo bah dalaayo. mar waxa uu ahaa maxamed siyaad barre masaakiin koriye 1907 jidadka iyo meelaha qashinku yaallo ka ururiyey dad agoon iyo darbajiif u badan. waxaanu maxamed siyaad barre dadkaasi u dhisay xarun kacan oo lagu barbaariyo carruurtaasi. oo 1888 waxa uu maxamed siyaad barre shacab ka qaxay koonfurta Soomaaliya u amray inay duqeeyaan ayuu amray in diyaaradaha qaranku ay duqeeyaan, isagoo dhulka la simay naf iyo maal waxay haysteen. maxamed siyaad barre waxa uu ahaa nuux xukunka aad u jecel, waxaanu dalka Soomaaliya ka talinayay muddo 20 sannadood oo uu xukunka dalka hayay.
marxaladda lagu jirana kursiga iyo waddanka waxaa la weynaa kursiga waxaanu maxamed siyaad barre noqday nin qabiilka iyo qaranku la weyn yahay qabiilku oo aan maxamed siyaad barre ka fakerin mustaqbalka iyo masiirka ummaddu halka uu ku dambayn doono isaga dabadii qarnigii 20aad madaxdii dhiigyacabka ahayd ee dunida soo martay markii la tartansiiyey waxaa kaalinta koowaad galay hoggaamiyaha dalka Cambodia Pol Pot midkaasi oo xumaan oo dhan dalkiisa kula kacay waxaana kaalinta labaad ka galay maxamed siyaad barre oo kaalinta labaad waxa uu ku galay xukun jacayl iyo xasuuq dadkiisa maxamed siyaad barre xukun jacayl dartii waxa uu lumiyey dhowr fursadood oo dalka lagu dejin lahaa marxalad kale waxaase ayaan darro weyn ahayd iyo wax laga qoomameeyo isagoo 21 sano madaxweyne ka ahaa dalka Soomaaliya markii caasimadda laga saaray maxamed siyaad barre waxa uu tiraba 2 jeer soo jamhadeeyay isagoona la magac baxay gabayo iyo heeso lagu tirinayo rugu cadaagiisa rogaal celi waxayna kala ahaayeen Abriil 1991 iyo Abriil 1992 maxamed siyaad barre waxa uu soo abaabulay dagaaladii la magac baxay rugu cadaagiisa rogaal celi maxaase yeelay migista Hayle Maryan markii dalkiisa laga saaray Itoobiya dagaalkaasi oo sababay halaagii iyo macaluushii ku habsatay koonfurta Soomaaliya balse maxamed siyaad barre waxa la is odhan karaa marka la qiimeeyo dagaalada iyo jamhadaynta uu soo galay maxamed siyaad barre waxa la is odhan karaa dhibic dhiig ah iyo wadaniyad iyo xilkasnimo ay kuma aysan jirin maxamed siyaad barre balse aragtidiisa koowaad waxay ahayd sida uu u sii haysan lahaa kursiga oo keliyaato maxaa yeelay dhigiisa migista Hayle Maryan markii dalkaasi laga saaray 28kii bishii shanaad 1991 waxa uu Addis Ababa ka baxay isagoon hal guri dumin diyaaradii uu migista Hayle Maryan ku tagay dalkaasi Zimbabwe ee uu la baxsaday dib ayuu ugu soo celiyay dalkiisa Itoobiya daawadayaal waana sawiran kartaa Soomaaliya iyo Itoobiya marxaladda ay imika kala taagan yihiin haddaba maxamed siyaad barre waxa uu ahaa hoggaamiyihii ibid ugu waxqabadka badnaa Soomaaliya balse aan isagu ka tarin aayaha mustaqbalka iyo ummadda shacabka Soomaaliyeed maamulkii maxamed siyaad barre waxa laga dhaxlay guuldarro weyn iyo qaran jab aad u ba'an isla markaasina ceel dheer ku riday Soomaali midaysan waqti xaadirkaasi